dhawaan ayaan waraabala hadalka laftiisa ku soo arkay magaalada Balligubadle oo ah magaalo madaxda gobolka Hawd waxaana ku magac dheeray Xasan Jafel adigu keebad dhalatay markaas 18 good waxaana shugudka la Foocaar Foocaar waana gudka 18 good ee dayax maro madaxda oo ah oo waxa la yiraahdaa xagga carabigana waxa lagu yiraahdaa asad baa lagu yiraahdaa marka taariikhdan kale caadiga ah Xasanow 18 good sidee isu waafaqayaan 18 good de waxay isku waafaqayaan bishu way ku bilatay koow way ku soconaysaa uun tire eeg ba ku bilatay habeen caawo waa bil labada mid bil saddexda mid bil shanta mid bil saasay ku soconaysaa waqti marka xalay toole waxa ugu dambeysay dayaxu wuxuu joogay faruur cirir godka la yiraahdo iyo xalada dayaxu taagna caawna wuxuu joogayaa jid barbaar habeen dambe wuxuu joogayaa jid gabar leh habeenka ku xiga wuxuu joogayaa jid diriq leh habeenka ku xiga wuxuu joogayaa lugud habeenka kale wuxuu joogayaa rab dambe maxay kala yihiin markaa meelaha uu joogay sheegaysa magaca guucd waxa la kala yiraahdaa kolka ugu horeysa waxa la yiraahdaa faraaci 7 god faraaci baa la yiraahdaa 7 godna naafa la yiraahdaa 4 godna dirir baa la yiraahdaa maxaan ku dhahaa 4 godna waxa la yiraahdaa daalalo 6na waxa la yiraahdaa cirir isugee marka isku soo wada celisana waa 18 saasi marka magaca gudadkan dayaxu maraa shanta magac bay leeyihiin hay 12 bilood caadiga la xisaabsado iyo 18 good sidee isu waafaqayaan marka Xasan waxay isu waafaqayaan tiro guud waxa dee jirta oo is waafajina marka waxa la doonayaa saas oo kale in maskaxda laga shaqeysiyo si isu waafaqayaan laakiin bilahan ku sheegaya saddexda bilood ee dayreed waxay ku bishaan laba good oo afarta dirirka iyo laba good oo daalala iyo saddexda dayreed ku bishaan laba godka ugu dambeysay maran la yiraahdo iyo afarta iyo lixda cirirkana waxa ku bisha jiilaalka todobada faraacida la yiraahdo waxa ku bishay guga todobada naafa la yiraahdo waxa ku bishay xagaaga saasay isu qaabilayaan marka 12 bilood way ugu dambeyntii Xasan waxa kale aan jeclay inaan ku weydiiyo de la ii sheegay in hibooyinkaaga ay ka mid tahay inaad u dhaxayso de waraabaha kale iyo dadka hadii la isfahmi waayo aad adigu kala dhex gashid adiga waraabaha si isu fahantaan taasi waa wax jirta marka ugu horeysa waxa weeyaan qiyaastiisa sheekada ku maqlay waxa leeyahay markan yaraasay waraabahan u jiray ilaa 9 sanadoodii meelaha joogay sababtaas hooyada waxaan ka soo gaaray iyadoo islaamaha ku leh inaan ka waan ka naxaado habeen soo waraabaa u ciyaar midda kale annagoo cadalooleyna ayaan sahab oo yaryar baan ku soo cararnay oo odayaashu leeyahay reeruha la guro la arisanayo bari markaas aan ku abtiyo laba waraaba ciyaaya wuxuu yiri ku dhadow soo gaad qaalin baan meel ku hor joogay dabeedna markiiba uu kaga siiyay cabaad kii ruuray markuu soo galay qaalintii waanu qalanoo dooxay gugii baanu siinay sabeeno reerkii midda kale dadku waxay yiraahdaan qofku uu isqaawiyaa uu isdhex tagaa anigu xaniis ma qaawiyo meelkii kastaan joogo fooxeeru libaanahu baan qaataa markaan waraabaa doonaya xalay ugu dambeysay reer agteeda ah qoladan qaalanku ka jabay ayaa igu soo kala haday anoo islaha ku kala gabadh baa ka bugtay reerkii ilaahay un baa yaqaan habeenka xalay wuxuu ku sameeyay aariga wuu isu daatay wanankii iidu way isu daateen dabadeedna gabadhii dabadda soo baxday iyaduna way qaylinaysa ciraashkaana laga keenay nabsadana waxaan ka doonay gabadha aynu jinka ka cuno dabeedna uu mashaxarada ayaa la kulba uu isla jiidayo ma garanaysa ta kale laakiin Xasanow marka leey waa waraabala hadal qofkaasi maxaa lagu hadlaa luqad noocee waxaan dee lagu hadlaa codkiisa qofka yaqaano unba la hadlaayo halka haduu imka uu ka yiraahdo inteenoo dhan oo shira ayaan leeyahay imka waxa soo neeyo waraabo qaybtaana waxa dib ugu cajaayib badan markii dadka islaayaan oo ay qoladii geela kala laayeen xabada la daba jabcsata imka waa nabad xoolahooda lama soo xariyo dabadu ka soo gaxay hadii ka dib jira say isu qabtaan dadka waxay isu qabtaan dadka qaar buu khayr u yahay isaga sheega marka uu reer u dhaco mesela reerku saashka tuudan maxad ku samaysay isagoo ruuraya buu dhaha
fasal caynkaasaan ku galla waalidiintoodii baan dhaxlin xoolahan ayaanu ka dhaxlin xoolo dhaxala xerada ku jira xitaa sakada lagama bixiyo buu leeyahay waxba lagu yar cadaadiyey xitaa wuxuu odhanayaa baadida ayaa reerkan rug u lahaydoo way xalaalaysteen xitaa waa ribo cun oo waa qolada caalamka wax ka soo cuntay afmiishaariinta ah marka waxba halkan reerkan ku yara biiro odhanaya qaarna wuxuu odhanayaa innaa lilah kaa waanu u ducaynay furihiisii baabanu ahayn haddaanu neefka ka qaadannay qaar bukayna an cashar kelima loo dooni maayo odhanaya neefkuu kala cararayaa laakiin marka waraabahan joogaa waa waraabo galbeed ka yimioo reer nadiir baa laydhaha waa waraabe allay badiyo dhulkan joogi jiray gaagaabnaa dabeedna waa bahal bilaa sharcihoo nayluhu oo ma reeruu kale leeyahay isaguna sida dadkoo kale waa qabiilooyinkiisu way farabadeen waxaa laydhahaa ukud iyo aakad iyo warda iyo nadiir iyo kooshin iyo dabayl iyo inaqayta burre iyo huluul iyo idiin iyo cagay iyo reer baliid magacyo fara badanoo caynkaasi buu leeyahay xaggey markaa kala degaan xasanow qaaradaha soomaaliya unbay ku kala degaynoo qolo waliba waxay leedahay mid kabiirahoo caddoo weydah oo xaruura oo aan isagu meel tinahoo madow lahayn ayuu leeyahay iyo qaar ka hooseeyo fiqiya laydhaho marka xasanow tan soomaalidu ay isku xidhiiriyaan waraabaha iyo markaa jinka oo kale maxaa ka jiray kula tay adiga ogaantaha nin baa nin badan diidaya idhankan joogoo lahaa inantaa waxaan ka soo qaaday hargeysa jin baa ku jira culammada markii qur-aanka ku akhrida waxay odhanayaan xasan jafalun baan uga tegaynaa ninkii makasaaka gurigeyg buu gala soo hadlaya haddadan wuu inoo weydaartay koow anna ku iman kari maayo lama bardhooda mayro bukooda wax dhirayo alaabtaana ma hayo imanka soo sii socda haddaan qulacawdi ku akhriyo gabadhaas way shaqo tegaysaa mar midda kale qolada madaxa sii adagna qoladan aan kuu sheegaya baan ugu yeedhayaa wuxuun baan lahay war hebelow reerkan wax ka qabta allaalaal mee ku soo noqon mayno odhanayaa markay faryaradu ka xidhan tahay macnahooduna waa caynkaa kuwaana وطهي وضحى والليل والصافات وطور والنجم إذا هوى والليل هدا تقان وذات باتي طهي وقبل مرسلتي وردين أنا حي كعول ميتني وذا يبا طهي أواي إسوهلني ويهو يقوي وطنا ووي كلا وحن لها وغيري ووري ودني بانهي أنيقو مرير كان واردي وذيعا لوي لها وحدا weerka u xirto aan ka waabinahayaan wadaagaynaa warya wareer weyn baad wadaa wanaag baan ku wadacay warkuna waa kooban yahay wadaynimaka ma rabo waddankaana iskale